quruxda badan la aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhiganaha maaxdeerayada run ahaantii waxaanu bilownay aamintu markay ahayd bishii 9aad 2018 caawa aan bandhigiisa u joognay waan soo gabagabeynay run ahaantii bandhiga dhiganaha maaxdeerayada dhalinyartii soo waday waxaan kala soo kulanay run ahaantii waa dareemi ka dhan dad dhalinyaro ah markaas dhiganay bilaabay iyagoon aqoon u lahayn xeerka afka sidoo kale aan haysan agab wax ku qoraan run ahaantii taas waxay ahayd waxyaabihii ugu horeeyay caqabadii ugu horeeyay marka aan dhiganahan bilaabaynay naga qabsaday ilaahay galadii Axmed Xasan Ciise oo hadda maqan bari Axmed Xasan Ciise wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay isagoo aqoon saas aan noolahayn run ahaantii nagu dhiirigeliyay hawsha tan markaas noogu deeqay agabkiisii aad baan jeclahay inaan ugu mahadceliyo sidoo kale qof kasto wax ku darsaday dhiganaha maaxdeerayada sidoo kale isagana waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhiganaha maaxdeerayada waxa uu ka hadlayaa hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed dhiganaha cutubkiisa koowaad waa meesiga erayo ku saabsan meesiga cutubkiisa labaad wuxuu ka hadlayaa dhaqanka waa erayo ku saabsan dhaqanka sidoo kale cutubkiisa saddexaad wuxuu ka hadlayaa deegaanka waa erayo ku saabsan deegaanka cutubka afraad wuxuu ka hadlayaa xilliyada sida xilli roobaadiyada iyo erayo ku saabsan cutubka shanaad wuxuu ka hadlayaa dugaaga ama duurjoogta waxa loo yaqaano sidoo kale cutubka lixaad ee ugu dambeeya waa erayo guud erayadaas dhamaantood 6 cutub ka kooban waa erayo run ahaantii si ay uga jeedaan erayo nuxur la weeyay dhiganaha maaxdeerayada yoolkii aan ka lahaa marka aan bilaabaynay wuxuu ahaa in hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ay dhalinyartu bartaan run ahaantii oo aad moodid afka marka laga hadlayo dhalinyartu inaanay ku baraarugsanayn caawa dhan laga hadlayay balse wuxuu ahaa waxyaabihii ugu horeeyay ee nagu dhiirigeliyay inaanu dhiganahan aanu ka hadalno run ahaantii dhiganahan waxaan aaminsanahay bulshada Soomaaliyeed qof kasta meel kasta uu joogo inuu wax ka tari doono qofku marka uu akhristo waxaan aaminsanahay oo aan hadda halkan la taaganahay inuu dhiganahaasi adiga wax badan ku soo gelin doono run ahaantii waa dhigana lagu bixiyay aamin aad iyo aad u tiro badan sidii bulshada Soomaaliyeed markasta afkoodu uu noqon lahaa af hodana dhiganaha maaxdeerayada waxa weeye dhigane aan aaminsanahay inuu bulshada Soomaaliyeed hal abuur kale inuu wax badan ka taageeri doono run ahaantii waxa jira dhalinyaro badan oo isku dayaya inay hadda hal abuurnimadooda ay ka dheefsadaan sidaa daraadeed waxaan u malaynayaa waa dhiganihii ugu horeeyay ee erayo ka hadlaya ee sidan oo kale loo qorayo guud ahaan dalkeena ma aan arkin dhigana la mid ah dhiganahan oo kale ama dhigana ka horeeyay oo eray bixin Soomaaliya lagu eray bixinayo run ahaantii waxaan u malaynayaa in wax badan dhamaanteen ina ka tari doono haddii ay beedmo dhiganahan maaxdeerayada ay hadda halkan yaala waxa qoray ururka xoojinta afka ee dhigaareeb oo uu horkacayo Axmed Xasan Ciise Axmed أيوب عبد الله جامع عبد القادر محمد سعيد عبد الله عبد القادر عبد الرشيد آدم جامع هبون موسى يوسف عبد الكريم حاجي سيد علي يا أحمد محمد يا محمود آدم موسى سو كلا دجناهن وحكى قيب قاطي وقيب لحال لك قاطي دجناهن سو صباحي لها سعيد أحمد سعيد موادن أورنهانتي جرب نقصي دجناهن سدو نقص صباحي لها سدو كلا وحكى عن نقصي أحمد أبشر أبوان يوسف عبد الرحمن أقاسم عبد الرزاق يا عبد الله داهر آدم رنهانتي يودد بدن ورنهانتي هلا كان فديا ورنهانتي أي كم بديهم برياش على الواحة يجونا واحد هاي أنت تكلف دبرتوها هوشة تنقلوح بدن لين نوقف صنطو آدي أدبان ومه العلن يقف كستوري جناها ما حد رياضة وحقود الصدي تلاقي تسالة واحد دون تها هاتو وحنا جعلناها قف كستوري جناها آخرية إنه تلاقي تسالة نجوس عليو سيا إنه تلدينا وقف عيسنا وحنا وبهنا هو تلدينا ديجانها مركا أخرسان تلادينا نقص عليا دمانتين آدي آد باومها سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ذي بردين يا بتقليو كركينا عتو دمانتين عدو الباء وهل كان تيمي أو كسوق يبقى شيء نسب كذا ينكو سلام هيا أو عنكو بردين يا بدين ما يو أمين دنبال لتشوجا كليو حنكو سوكو بيا قفل بأفكين ويلاليو إسقى يك بلعبتها dadku intee xagga soo istaagaan dad badan afka la ilaaliyo waan isticmaalaya iyo iskuulkeena iyo macadkeena iyo sidan iyo baa loo dhigay marka afku adigu ka bilaabma inaad ilaalisid kolkaad hadlaysid iyo kolkaad qoraysid labadaba
marka dadkeena saa u badan oo qof walba oo markuu meel soo istaago wax u yaro de isaga ku saabsan oo adigu wase wax dan ay iska galay inuu markaas inta meesha taagan u macaaneeyo mooyaan si kale ma leh waa aragteen taliska dadka ku jira dawladda waxay sameeyaan markay taagan yihiin waxaan sidan aan qabanaynaa hadhowna markay meeshii tagaana de maxad ugu ogeyd ba dhacaysa marka afku adigu ka bilaabma adiga inaad dhowrtid weeyaan adigu inaad ilaalisid weeyaan markaas kadib ayay imaanaysaa in dadku dhan wada ilaaliyaan macaansiga iyo waan mashquulsanahay waan isticmaalayaa iyo sidaan aan ka dhacaya iyo afaf kale inaad isticmaashid adigoo la afka hala ilaaliyo ma wanaagsana marka saaxiibaday jaalayaasheeda dhigaal reeb waan bogaadinayaa marka afka malihi anigu in qofku uusan af kale geli karinba sidaan u badannahay waxbaa ku baranay af carabiga af soomaaligii ase waxaa jirta in qofku uu ka daba tegi karo marka adigu hadda tiraahdo anigu hadda saaxiibaday markaan iri iyo waan isticmaalayaa markaan iri dee labadaba waa carabi marka laakiin waa inaan ka dabageeyaa jaalayaasheeda oo saaxiibaday ah iyo isticmaal oo adeegsi ah marka ta muhiimaddu waa taas markaad wax walba ka hadlaysid siday ugu wacanta waa inaad uga hadashid afka markaad ka hadlaysid afkaaga waa la ilaalinayaa dhehaysa adigay kaa bilaabmata adigu ilaali dheeray maayo saaxiibadayda jaalayaashayda dhigareeb waan u hambalyaynayaa dhigaane farhayo qurux badan ayay soo saareen wuxuuna ka caawinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay wax badan afka ka ogaadaan waxyaabo badan oo halkan ku jiray ayaa oo badan aad adeegsataan ayaa halkan ka heli doontaan oo afaf kale aad u adeegsataan hadii Soomaaliya aad ku heli doontaan hadii la yiraahdo waa idin bariidinaya wad mahadsan waana arrin runtii dadka halka iga muuqdo barayaal qaybtood u badan si fiican u farxad gelinaysa maxaa yeelay waxaa la yiri baraha iyo qofka waalidka waxaa la yiraahdaa waa labada qof oo kaliya oo jecel adduunka cidii ay soo saartay inay ka hormaraan qofka waalidka uu jecel yahay gabadhiisu inay ka wanaagsanaato oo wiilkiisu ka wanaagsanaado baruhuna sidaas oo kale maxaa yeelay ujeedku wuxuu baraya marka hore waa inuu horumar sameeyo wax soo kordhiyo marka taas ba marka waad aad u bogaadinayaa marka labaad ururka iyo shaqadiisa runtii aanu waan ka dhagsanaa hore baa ula socday walaw aanan joodi balaaran ku beerin taas aan ka shalaytoonayo ilaahay idinkiina aan ku beerin doono wixii tabartaya waan ku bogaadinayaa shaqada ay qabteen maxaa yeelay shaqada ay qabteen runtii waa shaqo dawladdu taaleey sida halka laga sheekeeyay luqaddu waxa weey waa national treasure wax dalkooda leeyahay shakhsi iyo qof iyo qabiil toona mas'uuliyad kama saarna marka dawlad shaqo u taaleey inay dhalinyaro maanta daada ku jidho oo duruufta ku jidho oo heerka nolosha ka maraya ay qabtaan iyada waxay tahay fariin dhameystiran u diraysa cid kasta dhiirigelin u noqonaysa intaan kale halkan joogtaa marka taas aad baa uga mahadcelinaya 100% waana rajeynayaa in lagu garab istaaguna laba nooc uu noqdaa de nooc ugu muhiimsan waxa weey waxay soo bandhigeen in laga caawiyo inuu dad badan gaaro in la akhriyo in la gado in shakhsiyan loo gato maktabadaha loo gado muassasaadka la gaarsiiyo taas ugu muhiimsan waxaan leenahay meel fiican ayaad maraysaan meel fiican ayaa wax soo gaarsiiseen halka ha kaga harinina qalinkiinana waxa u adeegsataan in aad markasta umadiina ugu shaqeysaan waxaan si gooni u salaamayaa macallimiinta sharafta aan wada soconay badan aan nahay waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa una faraxsanahay ardayda ama dhalinyarada isku taxallujiyay inay soo agaasimaan madashatan runtii aad iyo aad bay farx gelinaysaa inaan ka soo qayb galo wax yar inaan ka taabtaan jeclahay waxa la yiraahdo bal qorshaha afka iyo nidaamku suu yahay waxaan ka qayb galay doodo ama wada hadallo laga hadlayo afka Soomaaliga marar badan tii ugu dambeysay ka qayb waxay mid wasaaradda hidaha iyo dhaqanka Puntland ay qabanayso wasiirku ay joogeen waa la tilmaamay runtii ciladaha iyo caqabadaha haysta waxaad ogtihiin af marka la yiraahdo barashada afka iyo qofka qiimkiisu badan ama kala tagana oo qofkaan intuu afkiisa uu ka yaqaanay dhaqanka afka iyo dhaqanka iyo diintu inta way israacaan intuu qofku afkiisa ka yaqaan ayuu dhaqankiisana ayuu ka yaqaanaa qofku dhaqankiisa ka yaqaan ayuu ka yaqaanaa waxa la yiraahdo dadkiisa waxay yihiin soo marka waa erey aad runtii isugu xiran oo aan aad iyo aad kala maarmin qof kasta qofku ka jecel yahay waxa la yiraahdo wadaniyada iyo dal jacaylku waa intuu qofkaasi uga dhow yahay inuu afkiisa adeegsado waxaan isleeyahay afku waa wasiilo ay umada ku xiriirto afka Soomaaligu waa af aad iyo aad u gundheer waqti badan jiray
waxaan ka mid dadka aaminsan baan ka mid ahay in isaga luuqado badan inay ka farcameen hadda koor 2008 maraan qabanayna barnaamij noocaas oo kale ayaa abwaanshuba ka soo qayb galay marka erey ka qabtay maanta wuxuu yiri 500 sano ka hor ayuu afka Soomaaliga qornaayo ummado faraaciinta kamid ah ayaa qoraalkiisa hayay mana uu af waqti dheer soo jiray waan bogaadinay dhalinyarada isku taxallujiyay inay wax ka qoraan inay bogaadiyaan inay dabool ku sameeyaan inay isaga ruuxiisa bartaan saogtihiin inagu dhalinyaradu waa 2 jiilashii dambe magaalada ku dhashay ee afka suuqiga iyo afka magaalada aad ka u yaqaana afkeena waa afid badan baadiyaha ku aroramiga ka yimaada soo marka waa 2 jiilo aad u kala duwan meeshaas ayaad ka arkaysa anagu macallin marka imtixaanka la qaaday iyo marka imtixaamada arkaysiyo ardo ay inay uga cabanayaan afka Soomaaliga runtii aad bay noo taabanaysaa eedana ardaydu inta badan ma saarnaho waa arrin waaqici ah weeye iyo ururkan u oolanaya runtii waan soo dhaweynaynaa waa wax bulshadeenu ay u baahan tahay in lagu soo dabaalo afkii hooyo sida la wada tilmaamay af Soomaaliga dadka magaalada ku nool iskuma fiicna waxaan isugu fiicnayn su'aal hadda weydiiyo dhalinyartu mawduuca ugu badan oo afka Soomaaliga ka qoraan yaa ii sheegay mawduuca ugu badan oo afka Soomaaliga ay ka qoraan markay adeegsanayaan mobilada ay gacanta ku haystaan mawduuca ugu badan oo ay ka qoraan afka Soomaaliga yaa ii sheegay يا دير قلتك القرآن طبعا أنا متكلم أورن لها شو كان سك القرآن رجال وحقيقة حضرت في رسو الرياضة أي دنيات سوء ذيك سنة مركز شو كان سنة كل واحد طبقه أهل قاون وقف وين وسفهم كريم لكن يوم سلفهم يعني وحقيقة حضرت في رسو أنا دنيا كل حجرة دنيا كم تبانه erayada isticmaalaan oo isu adeegsadaan waxaad u qosasheen wax kale maaha waxaad ogtiin xaqiiqada afka Soomaaliga wuxuu ka go'aa in la hagaajiyo jiilka soo koraya waxaad ogtihiin nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii nabinimada loo diyaarinayay waxaa loo diray baadiye reer bani Sacad ayuu aaday kadibna af Soomaaliga soo bartay af Carabiga soo bartay wuxuu aad iyo aad loogu tala galay inuu ku soo barbaaro baadiyaha laba shay laga helaa afkana waa laga bartaa awoodna waa lagu yeeshaa dhaqankeena Soomaaliyeed soo noqotaan isimada xagee laga doortaa 2 qof oo walaalo ah markay dhaxlaan boqortooyada qofka magaalada jooga iyo kan baadiyaha jooga waxaa la door bidaa midka jooga xagee baadiyaha maxaa loo door bidayaa wuxuu yaqaanaa dhaqankii wuxuu yaqaanaa afkii wuxuu yaqaanaa garta sida loo gooyo wuxuu yaqaanaa bulshadan uu ku dhex nool yahay habka ay u dhaqanto iyo caadaadka ay leedahay laakiin nin magaalo ku dhashay oo ku koray waxaad moodaa inuu wax badan la soconin sidaa darteed aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dhalinyarada isku taxalluujisay inay afkii hooyo u istaagaan una qareemaan waa arrin u baahan in lagu garab istaago lagu bogaadiyo lagu dhiirigeliyo runtii markii hore waan isqarinaya waxaas lahaa barayaasha afkooda lagu yeerayaa laakiin haddii minhaaj lagu yeeray minhaaj insha allahu tacaala waxay qaadaysaa 20 buug haddii la hadmo 20 buugna waa qadimaad hadda lacagta bixinaya kiis gartaynayo waana qofkii gudoomi lahaa oo ka tirsan dhalinyarada inuu soo istaago $100 ma haysan soo ma soo ma ya ilaa jeebka ilaga hadlo waa ka $100 waxaa loo qaybiyaa insha Allah taala boorta marka laga reebo dadka madasha jooga dhalinyaradu ayaa qaybinaya insha Allah taala dadka madasha jooga loo qaybiyo intaas ayaan insha Allah taala kaga qayb qaadanaynaa runtii waxa uu tihiin dhalinyaro
bulshada nafdhawr baa u tihiin bulsho marka la fiirinayo kiyaankeeda iyo jiritaankeeda waxaa laga fiiriyaa dadka da'yarta ah oo u soo koraya oo maskaxda ah haddii dadkaasi ay halaysmaan oo ay khalmaan bulshadaasi nacfi badan ma yeelato u istaaga dalkiinna diintiinna dadkiinna inaad wax ka bedashaan oo aad kaga bedashaan daawud sakari wuxuu ku celceliyey qofku qiyamkiisa inuu ilaaliyo qiyamka waxaa laga wadaa qofkan inuu yahay qof hamigiisu sarreeyo akhlaaqdiisu wanaagsan tahay isluubkiisu saxan yahay hadda kulli waxaan ku hadlay waa carabi akhlaaq isluub qiyam kulli hada araab hadda af soomaaliga kharibi marka inagu waxaan nahay af soomaaligeena waa mushakal laakiin qof yar baa wuxuu ku hadli karaa 5 daqiiqo oo xiriir af soomaali aan la barxin af soomaali aan mushakal ahayn dad yar baa ku hadli karaa haddii aan halkaas soo istaago qofku af soomaali u badiya oo la yahay 10 daqiiqo xiriir ku hadla af soomaali saxa way adag tahay inuu ku hadlo ama ingiriisi ku daraya ama carabi ku daraya dadka sawaaxiliga yaqaana hadday dhigaystaan sawaaxiliga waxa ka buuxa carabi sawaaxiliga carabiga ka buuxa tiradooda waa carabi dhamaan Etoobiyaanku waa saas oo kale carabiga ka buuxa marka afku waa isku dhex jira laakiin waa in la dadaalo waxyaalaha ugu daran hadda af Soomaaliga siiba biyo kamid ah meelaha boorarka lagu qoro maqaaxiyaha dukaamada kulli waxa ku qoran English dhamaan dowladda deegaanka Ethiopia Soomaalida aan dhaho ayaa madaxweynaha ka horeeyay wuxuu ku soo rogay in meheradaha dhamaantood lagu qoro af Soomaali isagoo waliba dowlad kale ka tirsan wuxuu ku soo rogay in dhammaan meheradaha lagu qoro afka Soomaaliga wayna ku guuleysteen runtii inagu ruuxayna markaa inaan ololeynaa bal meheradaha in lagu qoro afka hooyo aad iyo aad u mahadsantihiin dhalinyaro waxaan kale oo u mahadcelinayaa dhalinyaradan aan filayo hoolkan inay ku marti qaadeen dhalinyaro kale oo maandaar oo iyaguna dadaal badan wada runtii meel fiican wax soo gaarsiiyay intaasaan hadalka soo koobaya hadalka waa laga badiyaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaas hawlkarnimada lahayd inala soo hawlgalayeen waxaan ku hormaraynaa buuni baan anagu naqaanaa jarkan dhammaantii waa wada taqaaniin waana bare waana buuni oo aqoon-yahan ah oo runtii si wacan ururka uga soo garab istaagay intay hawlaha kusoo jiray waxaa la yidhaahdaa Axmed Xasan Ciise haddeer waa naga yara xanuunsan yahay oo waa maqan yahay marka waxa uu gudoomiyay Maxamuud Aadan Muuse ku soo dhawow waxaa kaloo halkaan ugu talagalnay maamuus biligeed qofkii lahaa ama hal abuure ah aragtida lagu aasaasay ururka dhigaal reeb oo runtii waa maxaa yeelay maanta dhigaalkan halkan yaalla bilowgiisii iyo ururka dhigaal reeb inuu xurto waxaa ka dambeeyey inuu maankiisa tuujiyo Axmed Jaamac Maxamed hal abuure ku soo dhawow